golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeestay go'aanka dawladda Kenya ee ku aadan darbiga ay ka dhisayso xadka Soomaaliya xilli maalintii shalay baarlamaanka Soomaaliya ay ka doodeen arintaasi. warbixintani waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Ismaaciil Isxaaq. abwaan maxamuud cabdullaahi ciise sangub gudoomiyaha golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa uu si qiirana uga hadlay darbiga ay dawladda dalka Kenya ay ka dhisayso xuduudka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya. abwaan sangub ayaa waxa uu sheegay inay tahay gardarro bareer ah in dawladda dalka Kenya ay darbigani ka dhisto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, kaasi oo sheegay inay dawladda Kenya ay soo fargelisay qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliya. طلعي سومالي طلعي دولتي طلعي ciidankaygi geesigaayo طلعي ama maanta ay Kenya iyadoo dhulka iyaga haysata ay ku firdeen inay ku soo dulkaan oo intii hadana qaataan. waxaan leeyahay ninka dhoofayo joog, ninkii dhuuntada soo bax, ninka dhageelo oo hadal dhufays nin qotay waa fulaya dhamaanteen weerar baana. abwaan sangub ayaa dhanka kale waxa uu ku baaqay in dagaal lala galo haddii ay dawladda dalka Kenya ay joojiweyso darbiga ay ka dhisayso xuduudka dalalka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya. waxaan leeyahay dawladayadu waa inay si degdega codka shacabka raacdo oo Kenya ugu geyso calaaqaad si degdegana waa inay u dagaal gasho. daraarta afraadna waa inay Nairobi tagaan ciidamayadu oo qabsadaan. adduunkana waxaan u sheegaynaa caalamka inay gardarradu nagu badan tahay. waxay oran jireen unadu ama la sheegi jiray, waxay oran jireen dawlad xore lama weerari karo. waana la weerarey maxay ka hadleen? kamay hadlin. waxay u hadlaan Kristanka. dhanka kale waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka gaabisay doorkeedii ku aadanaa ka hadalka arrimaha dawladda Kenya iyo dhismaha haatan ka socda xuduudka dalka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya. xasan sheekh tuutaha ka shaqalabta caawa ku bariyo tuutahu adigu kugu jira lagu hogaami. ma toliid, ma Soomaali liid, ma ciidan liid, ma dhalinyaro liid, ma hub liid, ma dhaqaale liid. wax ka aad ka baqaysaa ma jiro. nahorma hadalkani gudoomiyaha golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalintii shalay ahayd baarlamaanka Soomaaliya dood kulul oo ka yeeshay darbiga dawladda Kenya ay ka dhisayso xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, ayadoona guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ay ku tilmaamtay darbigaas ay dhisayso dawladda Kenya mid markaasi caqabad ku ah jiritaanka Soomaaliya. Ismaaciil Caafi, Somali Cable, Muqdisho.